Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan bilaabeynaa cutubkii afraad. Cutubkan waxaan ku qaadan doonaa erayo ay ka bilowdaan shaqaladii aan soo qaadanay. Cashirkan waa cashirkii 42aad. Waxaan ku qaadan doonaa 4 eray oo afartooduba uu ka bilowdo xarafka a oo ah shaqal. Okay, haddii aan ku hormaro ereyga koowaad, waxa uu ka kooban yahay sida aad arkaysaan 3 qaybood: qayb guduudan ama casaan ah, qayb cagaar ah iyo qayb buluug ah. Qaybta guduudka waa a. Okay, a. Cagaarkana waa da iyo i, waxaa la dhihi jiray di. Buluugana waa ga iyo a, oo ayadana waxaa la dhihi jiray ga. Marka wuxuu noqonayaa a unbaa iska leedahay, ilaan awalba a bay ahayd soo maaha. waa a, di, ga, adiga. Okay, ereyga labaad asna waa a. Cagaarka waa ba iyo laba e, bee. Buluugana waa sa iyo so. Marka wuxuu noqonayaa a, bee, so, abeeso. A, beeso, abeeso. Ereyga saddexaad asna 2 qaybood uu ka kooban yahay, waa shaqal dheer. Okay, kan hal mar ayuu ahaa, waa a iyo a unbuu ka bilaabanayay. Kan laakiin waa shaqal dheer oo waxaan leenahay a. Qaybtaanna waaba iska garanaysaan oo waa ba iyo e, be. Marka muxuu noqonaa aabe, aabe. Okay, ereyga afraad asna sida aad arkaysaan waa 2 a. 2 a waa shaqal dheer oo waa la jiidaa, waxaa la lahaa a soo maaha. Qaybta cagaarkana waa ya iyo o, marka waxay noqonaysaa yo. Marka ereyga haddii aan soo aqriyo wuxuu noqonaa aayo, aayo. Okay, waxaan rajeynaa inaad fahanteen. Haddii wax su-aal ay jiraan insha allah waa isu weydiin kartiin. La socda cashirka 43aad. guulaan idin rajeynaa dhammaantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.